عبارة لبي تبانكي قدر صدام دكا وحالي مجالات مقدشة لجا فريا يا وحا قرح حوضر وانت بدل دكموي كمجالات مقدشة لجا مغلي وحاو كدعي رجب عسيس حياة اللي مجالات مقدشة gaari qarax laga soo guuriyay ayaa halkaasi ku qarxay noociisu ay yahay ama nooca Soomaalida u taqaano Toyota Fields walow taliska booliska Soomaaliya ay sheegeen in wax dhaawac iyo dhimasho qaraxaasi qarax ayaa mid xoogan waxaana burbur u gaarsiiyay gawaari halkaas taalay iyo sidoo kale goobo dhismo oo goobta ka agdawaa iyo ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed oo barta ay ku leedahay Twitter ku soo qortay qoraal ayaa waxa ay sheegtay in gaariga qarax laga soo guuriyay oo uusan wax khasaare ah gaarsiin dadka halkaasi ku noolaa isla markaana khasaare uu gaarsiiyay guryo halka ka agdawaa iyo sidoo kale gawaari baakin ku jirtay oo yaalay argada degmada Cabdi ee magaalada Muqdisho dhinaca kale isla 10 daqiiqo kadib qaraxii hore waxaa qarax bombaano lagu weeraray xarunta laanta degmada Yaaqshi waaxda horteeda waxaana qaraxa bombaano suuray mid kamid ah dad saarna mootobajaaj sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee ku sugan laantaasi waxaana ku dhaawacmay mid kamid ilaalada ciidanka laanta degmada Yaaqshi gaar ahaan laanta suuqaad waaxda horteeda sidoo kale waxaa ku dhaawacmay haweeney kamid ah dadka laantooda ku hor iibiya qaadkiisa sidoo kale wiil dhalinyaro ah ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa laanta suuqaad ayaa xilligan waxay howlgalo ka wadaan xaafadaha ka agdhow laanta iyo sidoo kale goobo looga shakisan yahay inay ka imaadeen dadka bamka ku tuuray laanta suuqaad ee degmada Yaaqshi ee gobolka Banaadir gudooyinkii dambe ammaanka magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid degan walow qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ay ka dhacayeen ololid ku ah ammaanka Muqdisho oo ay ka mid yihiin bilal iyo sidoo kale dhac loo geysto dadka shacabka ah waxaana cusub mudan in xalay waqti dambe ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliska magaalada Muqdisho ay gacanta ku dhigeen 3 ruux oo dhac ka geysanayay degmooyinka Yaaqshi iyo sidoo kale degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir guud ahaan xaaladda magaalada Muqdisho ayaa xilligan mid kacsan iyadoo isgoysyada laga galo magaalada Muqdisho dhinaca gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose la xiray iyo sidoo kale qaar ka mid ah isgoysyada magaalada Muqdisho ee gawaarida BLK iyo kuwa caadiga ay isku kala gooshaan kadib cabsi ka timid qaraxyo kale inay ka dhacaan magaalada Muqdisho